guddiga nabadaynta beelaha walaalaha ah ee Bahar Same iyo Kheer Cabdi waxa ay halkan tacsi uga dirayaan ummadda islaamka ummadda Soomaaliyeed ehelkii marxuumku ka dhintay marxuum Jaamac Cabdi Wali Sayid oo halkan gacan ka xaqdarinay xalay ku dishay magaalada Laascaanood dhagar qabaha dilay ninka marxuumka isna ciqaab iyo cadaab u kasbaday ilaahna waxaanu ka baryeynaa marxuumka inuu naxariista janno ka waraabiyo waxa guddiga nabadayntu saakaba ay gashay shirad fara badan oo lagu gol leeyahay in hawsha wax laga qabto waxa guddiga nabadayntu ay la fadhiisteen beesha Bahar Same waxayna u direen ninkii dhagar qabaha ahaa ee dilka geystay inay soo qabtaan meeshu galaba in laga daba galo maamulada la kaashado si buuxday u ballan qaadeen arrinka waxay muujiyeen tiraanyo iyo tacsi waxa ay tilmaameen inuu iyaga ka dhintay marxuumkaasi oo markaasi sida dhibku dhacay aad iyo aad uga xun yihiin maamulka Somaliland gaar ahaan barasaabka taliyaasha ciidanka iyagana waxaanu kala hadalnay inay gacan weyn ka geystaan sidii loo soo qaban lahaa dhagar qabaha iyo nasiib buuxda ayay u ballan qaadeen ilaahay waxaanu ka baryaynaa subxaanahu wa ta'aala marxuumka inuu naxariisto nabadda Allah inoo saldhigo Allah inoo taabageliyo saa doctor uba sheegay gudidu mowqif adag bay ka taagantay arrinta tan waxaanu qabnaa dilka xalay dhacay inuu ka duwan yahay dilkii hore inuu ka duwan yahay waayo nabaddu muddo ayay si fiican u soo taaba gashay meel bay soo gaadhay gudaha iyo dibadba aad baa dadku u kacay qalindaarka noocan oo kala ahi wuxuu keenayaa dhib badan buu keenay horena waa looga ballamay oo ballanku wuxuu ahaa ninkii dambe fal qaada inuu ka duwanaan doono kuwii hore oo ay noqonayso in la keeno oo sharciga la soo taago oo la mariyo waddadiisa sharciga ahayd si nabaddu ay u xidhanto oo dib dambe aanay u noqonin nin waliba suu doono ninkii baan lagu fasaxaan ay noqonin oo tusbax afka ka furan ay noqonin nabad la'aantu waa in la soo afjaraa waanu ka codsanay beeshii Bahar Same ninkii la keeno way tashanayaan way raadinayeen say noo ballan qaadeen hawshana waa ku jiraan hadal wanaagsan iyo dareen fiican baanu ka haynaa waxaan rajaynaynaa ku adkaynaa mar kalena in la iska kaashado gudaha iyo dibadba ninkaas soo qabashadiisa waan lagu hawlan yahay saan rajaynay biidnillahi tacaala waxaan rajaynaynaa marka cid kastaba oo hawshan ku hawlan daraf waliba inuu isxil saaro oo aan loo joojin ciddii rabta inay qalindaarto hawshana bashariso waxaa loo baahan yahay sabir baa loo baahan yahay dulqaad baa loo baahan yahay adkaysi baa loo baahan yahay waxay Soomaalidu cudurkuna uu soo booda caafimaadkuna uu soo dhuukiyaa waxaa laga yaabaa marka in qodxaha noocaas oo kale way iska iman karaan laakiin waxaan rajaynaynaa inay ku dambayso nabad waarta inay beeshu labada beelood ku guuxaan haddana way ka muuqataa saasaankeeda inay dhacdadan iyo tii hore ay la mid ahayn waxaan ilaahay subxaanahu wa ta'aala ka baryayaa dhagar qabahaas dhibka geystay oo ma aha lama oran karo beel buu matalayay dhagar qabuhu wuxuu rabaa inuu burburiyo waxaan soo ka soo shaqeeyay oo dhan inuu burburiyo rabaa wuxuu rabaa inaan rag badan oo kale oo jifdiisa in la dilu doonaya wuxuu rabaa rag badan oo nabad ka shaqeynaya dhintaan oo ka baxaan buu doonayaa nin cidna u taliyay ma waa nin maxaan ku raay dhibaatada meel xun dadka gaarsiiyay arinta waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inay naga soo afjaranto ilaahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa ta'ala inuu fudaydiyo khayrka dadka khayrka shaqeynayna ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu tabantaabiyo ilaahayna u naxariisto janno firdawsa u geeyo ehelkiisii qaraabadiisii iyo caruurtiisii iyo xaaskiisii ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo ummadda Soomaaliyeed ee nabadda jecel ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo taa haddaan ka gudbo waxaan leeyahay geeridu waa xaq ninkaas waa lagu daba jiraa beesha Bahar Same haddaanu saaka u tagnay aad iyo aad bay uga tiiraysnaayeen waxayna go'aan ku qaateen inay soo qabtaan annana waanu ku sugaynaa maamulkuna inuu la hawl galaanu ka codsanaynaa kuna soo ballannay meeshuu galaba in laga daba galo bismillaahi raxmaani raxiim warkii waxa dhameeyay culimada iyo odayaasha waxaan adkaynayaa koodii
waxaan aad uga walwalnay ama aad uga naxnay geerida dhacday ee nabadda socotay saasaanka fiican ee socday sida ay hore u sheegeen waxaan tacsiyad halka uga diraynaa oo u diraynaa eheladii uu ka geeriyooday marxuumka jaamac cabdiweli sayid sida aan saaka ka daranay qolada kale markaan la kulanay bahar sama waxay noo sheegeen inuu iyaga ka geeriyooday ninkaas